laakiin maanta barnaamijkeena waxa uu ka hadlayaa dhalinyarada ismaamulka deegaanka Mandera waan ognahay ayaga inay la mid yihiin dhalinyarada kale oo caalamka ku nool oo shaqo la'aan baahsan ah haysta laakiin marka la fiiriyo caalamka kale shaqo la'aantaas dhalinyarada haysta waxaa lagu sababayaa sababo kala duwan oo ka yimaado deegaanka ay ku nool yihiin hay ahaadeen sababo ka imaaday dadka hogaamiya bulshada ha ahaadeen bulshada naftinkeeda dhibaatooyin kale ka yimaado inay sababaan shaqo la'aantaas dhibaatooyinka dhalinta haysta miyaad noo taaban kartaa macnaha adoo si wanaagsan u falanqeynaa waa sax dhalinyarada macnaha waa waxa kaliya oo lagu tashan karo meesha ay ka dhashaan wadankaasna horumar gaarsiin kara dadka ay ka dhashaan horumar gaarsiin kara meesha ay ku nool yihiin horumar gaarsiin kara oo kaliya u dhaqdhaqaaq